نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكان هاو قد هصدي في مرنا إلهي طاعت دي سيد دقري سمدين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبطي هبلوضو لها مركلي لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي اسكا صبري تضبطي ويلو لها مركلي اسرائيل اسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركلي لغا قاداي اسكا صبري markaas jirkiisi waliba xanuun lagu riday اسكا صبري xanuun nooceeya gaadhay wala jirkii intuu dhamaaday hariga iyo lafaha isku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo haray xaaskiisi markaas qaraabadiisi ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fuduud inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaalada ay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqalada ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraahdo ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatada nagu dhacda ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisa ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ba muddada yar baan u adkeysan kara laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ayyub alayhi salam rabbigiibu u dhawaaqay oo rabbigiibu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yiri ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga qaad buu yiri ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa leeyahay halkii uu joogay baa lagu yiri lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsanaa awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee يعني أدقو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها سو صارينه لقطة هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا نركينا أردن نظام كإلهي بكون دحجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم كان روح ذا يكون دحجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون دحجرة بركان نظام كإلهي إيش نما قبنا يسو قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلكتي بالنبي أيوب سعود قاجي للكو كعليي لبض اللقوة تحدود بيه كصوبحين بالليل لبا إلو دبيا إلنا وحال يريو كم يلو إلنا وحال يقول يا عم يلي جركي سوى عادي وعبي على الشيء يقودها وحي حنون كجر دبا بناك وكصوبحين وصوك عبي مركلية حاسك سيبا مقالة كتمدي ويكو ريكتي يدو حشونaysa marka waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan aha oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaalada ugu maqnaayo oo u shaqo tagay miya dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhalinyarnimadiisina adigu aad kuugu ekaay formigiisi baad leedahay markaas ayuub aniga buu ka yiri ana ayuub كي أتكجت تكتي
sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaahay noo aqbalay istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha kal hore waxaan leeyahay bisheedii adduunka corona la sheegay wadannadeenna Soomaaliya oo cabsi baa la yar dareemayay aaway marka muu jiraa dhulkeenna war muu jiraa waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalad bay dhaadeen eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa al ahwaal ilaahay baa keenay marka ahwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaaladkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeenna Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan reer Hargeysa oo ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka naga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa ta magaalada u ballaaratay madaaristii macaahidii masaajidii ganacsigii da shukriga in la badiyo Soomaa waan ilaahay ku mahadino marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'ima ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma taala al-laylu fala budda min tuluu'i al-fajr famahma taala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraatee geeri baa ku xigta sidaasoo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaanahe iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa odhan jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaadaa waa la yaabay laba faras faras magaciisa waxaa la yidhaahdaa ashukr faraska kalena waxaa la yidhaahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynay hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteenaan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yidhi تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شدة barwaaqada ilaahay ku garo abaartiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan haddaa tahay ayuub baa kuu daliila siduu diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maalqabeen haddaa tahayna kam tujaar baa adduunka soo marto ehlullaahi oo ilaahay taqaana dhalinyar haddaa tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo oo toddobada ilaahay u hadhaynaya waxaa ka mida buu nebigu yidhi shaabun nasha'a fii taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa qayb ka mida waalida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro waad liibaantay ogow wanastaqiim ilaahay amarkiisa aan ku toosnaano insha allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi assalaam isagaba meeshii lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd jannada meel ka fiican may jirtaa halkaasaa lagu ikhtibaaray isaga jannada dhexdeeda fakulaa minha xayثu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi الshajara fatakuuna min الظaalimiin shaydaan ayaa u yimiday ibliis calayhi lacna deedna uu waswaasiyo wuxuu ku yidhi geedkaas cunidiisa lagaa reebay manfacada ku jirta ma kuu sheegaa haa noo sheeg haddaad adiga xaawo geedka aad cuni lahaydeen adiga iyo xawaa
لما ميدون بان نقول لهيدين أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين لما ملك بان نقول لهيدين أما لما ولي والجنة كوار يا يدهن لهيدين بكويري وداخل الجنة لقوا امتحان النبي آدم عليه السلام لأن قف كيبو كل عي جنة دي بالله سو ساري ومالك قيامها دتك ومركي نبي آدم أتقان الشفاعة أي ويديستان إليهين أبو البشر باتهي هذا النبي يده وجوه الرئيه إلهي نوجي إرجع واك أورنا يا قف كي أن جنة الإحدى ذا كوجلي أيام جنة النجا سو ساري بوليه عابد بان هاي أو عبادة بدن بان هو إلهي بان عابدانا هكودك من بالليدي إبليس سمد ملك بناني مجرته إلا يسقوا بإلهي بكو عابدي هذا ملائكة دحدة يسقوا كنول وبقعد كستو سمد كتر على دوشة إلهي كو عابدينا إسقنا هالكعب لقوا امتحان لقوا في النية إبليس عليه اللعنة حتى آدم عليه السلام مركي الله صوري صورة ديسة انت أنا الروح ذا لقوا أفوفين أفرت السنة اللي أيو النبي آدم إنجيجي بابا ديسي أي إنجيجي مركاسة ملايكة صدا ويقع ويكعب صدا مركاسة ويمادان إبليس عليه اللعنة وملايكته أيو أركيين إنو يحي كإلهي أيك وقدو مركابة يكون هذا حامدو إلهي نوبري أو نوبري هذا دعاء هذا الله أقبل إياه وهي امتحان باصوص عليه امتحان كأننا كفد نونا أيان كبقيناي إلهي النوبري بيكون هذا الامتحان كأننا كبعينه إلهي نجبت باديو مركز ودعاء يرادا إلهي امتحان كأننا نجبت باديو يكو ودعين يسقوسه يسقوس كربا دعاء دي يك الله أقبلي يسقينا اختبار كيف كنا عيبا ليدي ومحودي دي سجود النبي آدم بوسكت دي marka caabid baan ahay oo meel fiican man ilaahay ku caabudayaa bay culimadu leeyihiin ha ku dagmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa cabsidaas marka waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid oo qoom baan leeyahay cilmi baan leehayna ha ku dagmin baa leeyadana nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay isagoo caalima ayaa la fidneeyay dadna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmigu laha qalbigiisa ilaahay uu ka saaray bal'aan bin baacura ninkii la oran jiray weeyaan ee reer bani israa'iil ahaa fi zaman Musa alayhi salam fi surati al-a'raf wa ka ilaahay ku sheegay watul alayhim naba alladhi aataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin waxaad uga warantaaba nabiga lagu yiri kalladhi ki reer bani israa'iil ahaa hatta magaciisa ilaahay ma sheegin وحل سيئ آيات كيغان سيني با إلهي آيات اسم الله الأعظم كالله بريبا ليلي مقع إلهي وين هدي إلهي وحلقوه ديسو إلهي دعاء ونسوع لنين أيا إلهي ننكا بريبا ليلي تفسيرك قرطبك أيا بعض العلماء وحيقبا meel alle meeshu eega carshigu ka arki jiray baa leeyahay haduu xagga eega carshigu arkayay haduu xagga eega carshiga raxmaanku arkayay haduu xagga eega carshiga ilaahay buu arkayay qolana waxay yiraahdeen may ismullaahi al-azam ka la baray oo ducadiisa mustajaabahay madiinatul qudus buna ku noolaa markaas nabi Muuse alayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimanka jabbaariinta gaalada niman walaalo oo jabbaariin oo gaala ayaa qudus haysanayay marka nabi Muuse iyo qoomkiisu waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimanka jabbaarinta ay ka xoreeyaan marka ninka bal'am bin baacuur la oran jiray ama bal'am bin baacuura labadaba waa la yiraahday ayay u yimaadeen marka bay ku yiraahdeen Muuse nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda Muuse waa nin xadiid adag ciidanna u wata ciidan fara badanna u wata hadduu magaalada naga qabsadana uu halaagi oo baabi'in لأن حتى ولي إلهي ودوا دعاء سلا أقبله حوله يلا عقب أنا كقصينا إنه نبي موسى نجاها بار بيقول هذا ويقبي على ذي يندي نجا أسكتوا له بكير سوما لنا قبيلات باللغة امتحان سوما قبيلات هبدأ رعبهم خطر ويان دين تادي وخطر بعد كجر تايو قبيله هالنقطة وحال نقطانين قبيل كسر ريا
wax islaamnimo ahayn inay ku deeqin ninka muslimku waa laandheere hal bilyan iyo 500 milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaya insha Allah dhahada bariban qasamay nigu dara jamaacana hayno waagi daaraha dhaadheer Mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd maahan waxa dhaca qarax 2004 baan markaa annaguna Mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada New York ka dhaadhacnay maniya Sheekh Saciid ilaahu ku naxariis 5-6 baan ahayn mataarka JF Kennedy airportka New York marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayda iyo askarta isleeka barkana iska sidana anako weelashayadii aan cuntada ku karsaneen waa iska wadana jamaacada dacwa waa ajiib moogta diyaaraduna waa Kuwaitiya arday jaamiciyiin marka reer Kuwait diyaaradda ka buuxa waa 2004 Mareykankana waa la fuujigan yahay saas dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyiinta wayna la yaaban yihiin raggan karkan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacaya maxay yihiin hatta haddaan salaamu calaykum nidhaano waska kaaya eegaya yalla nagu sawirin macnaha wadaadka yalkadood airportkii baan ka daadagnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa lala galay interview lala yeeshay qol annaki mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baatihiin ha annagu jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniye intayna joojiyeen kiishiye waa meeshan immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 35 saacadaan eega 35 daqiiqo noogu dhameeyeen annaga hawlahayagii markaasaan halka imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliyeed arkay markaa mar alle markay Soomaaliyeedna arkeen ee Soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada la inuu agsawirin markaasaan jamaacadii ku iri unduru eega baan ku iri dadkii nala afka aha ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan ha haddaba raggan istiqbaalow hadana bal eega yaan istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan cadaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman Aasiyaatiga oo wadankaas dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamaacada kamid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari marale markaan u tagnaysaa noogu dhagdhageen markaasaan jamaacadii ku idhi innaka laandhaaray hadaba arka daaciga laandheera abaan ku ninka muslimka ee Ilaahay dartii u socda waa ka laandheerinimadiisu eega baan ku idhi marka waxaan qisadan u soo qaateen iigu sheegaya wax kala ma aha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba hadaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ee muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xiriirino oo islaamnimada aan isku tixgelino adaa laandheere ogow ninkani marka fi suurati al-a'raaf qisadiisa lagaga warramay اسم الله الأعظم كإلهي أفري بالليل دعاء الإسلام مستجابة هاي لكن من تلكية أي تيوي مادين بيكوير هذا النبي موسى يقوم كيسي آيات دقال إنه سوق هذا نجا حبار مركز وحول هدان موسى حباره الدنيا دي آخرة دي ويجا بابي بيجي ما ده قلنا بابين موسى وانين حديد وأذك نقال هذا حدو سوق لنا الرابي مايو واحد دون تناك كوسين نجا حبار وحال يدي ويقلن دقال كبا بلامي نبي موسى عليه السلام وحال يدي وجبين كري وهي قال دي مركز النبي موسى إله إلا مناجودي مركز إلهي كيري أدون أدوما هيدا كمدا ماشي كجرو السجا إني حبارة يقولي مركز النبي موسى يا ربي باطل مربح دوكو تاغن yahay oo dad baatil wadana uu kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxaysid adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaasi ismullaahi al-a'zam ka aad bartay ilaahu ka saar buuro ka masax qalbigiisa وعلى هل مركلي قلبيgiisa umba wax ka soo kaceeno
wax shimbir oo kale ninka afkiisa ka baxay baa la yidhi deedna carabkii baa soo dhacay markaasay leeyihiin ciidankii muusena way soo durqayaan kolba soo dhowaanayaan markaasay waraaway habaarkii wadde markaa buu leeyahay haddaan habaartamana habaarkaygu ininku nagu dhacayaa buu nebi muuse ku dhici maayo haddee toole waayo xiriirkii aniga ilaahay naga dhexeeyaa meesha ka baxay buu yidhi haddee toole wax kaloo nigu taageera ma hayee laakiin makri baan hayaa buu yidhi makri shirqool baa nebi muuse qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolkaa baan nii sheegaya farsamada ku dagaalgala buu yidhi waa maxay farsamada wuxuu yidhi gabdhihiinna yaryar ee bikiradaha dhar qurux badan intood u xidhaan nebi muuse qoomkiisa ka horgeeya buu yidhi daadna way ku fidnoobayaan oo dadka nebi muuse la socda gabdhaha yaryar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaanna ilaahay gargaarkiisa ka faydmaya buu cuquba ku soo degaysa marka makri talada inaan na siiye mooyaane habaar iiga soconaya imika ma jiro waa ninka ilaahay yidhi kalladii aataynaahu aayaatina maxaa cilmiga intaa la eg baa ilaahay baray ismullaahi alacdamka inuu yaqaano waxaa la yidhi waxa keliya ee ninkaa dariiqa ka saarteen leexisay waa casabiyad waa qabyaalad marka caalim baan ahay aqoon baan leehay ilaahay baan u dhowahay ha ku degmin dad fiican baan la joogaana ha ku degminoo abujahal iyo abulahabahe nebi maxamed bay arkeen sal alla alay wasalam hadalkii nebi maxamed bay maqleen qur-aanku nebi maxamed akhrinayay bay dhegaysteen haddana way ku intifaaci waayeen marka ilaahay tabaaraka wa tacaala istiqaamahayna siiyo waa inaan diinteenna ku sugnaano istaqiim dabaylaa imanaya dabayl socotaa soo socota dabaylo fara badan nebigaas ii sheegay sal alla alay wasalam fitan baa iman doonta oo zamanba zamanka ka dambeeya xaaladdu sii adkaanaysaa nebigaa sheegay ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka mu'minku diintiisa ku sugnaadaa axabu alacmaali ila allaahi adwamuhaa wain qalla ilaahay agtiisa camalka loogu jacaylo badan yahay waa camalkee waa camalka la daa'ime la joogteeyo walow camalkaasi haba yaraadee asbaabta istiqaamada diinta kugu siinaysa waxaa ka mid a bay culimmadu leeyihiin waa inaad ku noolaataa waa inaad eegataa bulshada wanaagsan mujtamac wanaagsan almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil baa nebigu yidhi saaxiibkaa diinta uu haysto ayaa adigana diinkuu noqonaysee nin waloo ninkaad la saaxiibi iska eeg buu rasuulku yidhi marka majmaceenna maadaamuu dhallinyar u badan yahay zamankuna uu zaman dhallinyarada aad ugu xun uu yahay oo zaman halis ay ku soo hagaageen dhinacna zamanku waa ka fiican yahayoo maasha allah dacwad baad haysataan masaajiiddii baa inoo dhismaysa khayrkii baa inoo badanaya ijtimaacyo ayaa la qabanayaa xaflado iyo nadwaad islaamiya ayay culummadu inoo qabanayaan war meeshaa khayr kale waa inaan ku orodno weeyaan saaxiibkaas diinta uu qabo ayaa adiga diin kuu noqonaysa buu nebigu yidhi nin wallow ninkaad la saaxiibi iska eeg marka bulshada wanaagsan haddaad la saaxiibto diintaadu way kuu badbaadi waayo laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyu baa nebigu yidhi ha la saaxiibin ilaa qof mu'mina mooyaane haddaad wax bixinaysana qofka alla ka baqala sii buu rasuulku yidhi laanna qofka alla ka baqale haddaad wax siiso ilaahay buu ugu dhowaan ajar iyo xasanaadna adiguna waad ka heli qofka iimaanka leh ee masaajiddii culimmada iyo dacwadda iyo khayrka ku xidhan haddaad cilaaqo la yeelato ood la saaxiibto adigana khayrku qofkaasi kuu jiidi sidii ninka reer bani israa'iil ahaa ee 99 naf gooyey wuxuu weydiiyey caalim ii tilmaama buu yidhi nin raahibaa loo sheegay raahibku waa ninka caabidka raahibkii wuxuu ku yidhi markuu yidhi 99 naf baan gooyey toobad maan leehay maya toobad ma lihid buu ka yidhi deedna 100 buu kaga dhigay isagii haddana ninkii ma fadhiisane war nin caalima ila doona caalim baa loo tilmaamay war ninkaasaa axkaamta yaqaanee u teg caalimkii markuu u yimidayna deedna markaasuu yidhi haa toobad waad leedahay laakiin toobaddaada shuruudeeda waxaa ka mid ah dhulkanaad joogto waa dhul xun waa inaad dhulkan aad beddishaa oo xaggeed u beddelaysaa dhulka meel heblaaye la yidhaahdo waa dhul wanaagsan
dad wanaagsan oo ilaahay caabudo khayr badan baa ku noole dadka u tag buudho ilaahay caabudayaan la caabud sidaa unbay toobadaada adiga ku hagaagaysaa dadna ninkii uu xamaan qaatay jidka bartamaha isagoo maraya ayaa ajashiisii timiday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay malaa'ikatul cadaab waxay leeyihiin ninkani waa ahlan naar oo 100 naf buu qabaa malaa'ikatul raxmana waxay leeyihiin jaa taa'iban ila allahi azza wa jalla ilaahay xaqiisu u soo noqdo ninkani toobad buu u soo socday waxa naxariista ilaahay baa loo qaadayaa malag suurad aadamiyada ayaa loo keenay la yiri oo kala garnaq labada malag markaas la yiri meeshuu dambiga uu ku galay iyo meeshuu raba inuu u hijroodo la yiri u qiyaasa dhulku u socday ee uu hijroonayay ayaa ilaahay u waxyadu ku yiri adoonkayga u dhawow taakay dheeraatay rasuulku yiri taako tii u socdayba waxyi min allah baa yimid u dhawow adoonkayga inuu naariga gala ma jeceliye dhulkaygu iyo adoonkayga u dhawow u dhawaaday taako dheeraaday dhulku u socday baa marka loo qaado malaa'ikatu rahma baa qaaday marka mujtamaca saamayn buu noloshaada ku yeelan marka mujtamacadeena marka saayidka markuu qofku joogo culimada wacdigooga ama khayrkooga uu maqlaayo waa sida bahalkan taayirka baabuurta naqaska la buuxiyo ama kubada tuyirku waa la buuxin erbad hadii lagu mudo ka waran wasiideena markiiba masaajidka marka soo gashay wacdiga dhageysatay iimaankaagu iyo khayrkaagu u beeraya waad jeclaanaysaa noloshaada sida uu iska ahaato laakiin markaad maqaaxida fadhiisatay ama banaanka aad u baxdo markaaba ishaada ma waxay ku dhacaysaa wax iimaankaaga dhaawacay mise wax iimaankaaga kubcinaya ya wax iimaankaaga dhaawacay maanta arkaysaa marka zaman adag baan ku jirnaa maanta waana bulshada wanaagsan marka xaqiiqa u badanaa masaajidda ku xidhnaana dacwada ku xidhnaa nafteena khayrka socdana aan cilaaqo la yeelana soo diyaar ma in insha Allah inaga aqbalo wixii wanaag ilaahayna soo dhaxmariyana isaga ayaa fadliga iska leh wixii gaf naga dhacayna ilaahay ha inooga dambe dhaaf kulligeen ilaahayna miisaanka xasanaadka dhageysigiina iyo hadalkayga ha inoo wada saaro khaatimadan Allah inoo hagaajiyo dambigeena Allah ha dhaaf dambiga waalidiinteena Allah ha dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah ha shaafiyo awtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo dad badan oo muslimiina duca dalbanayo wada xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo وفبالو كربيسين كرباد الله كقاضي صلى الله عليه وسلم بشارو haddii safar loo gali jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta shariicada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka ah iyo higaada culumta shariicada islaamka tarbiyada أولادة يلو قد عربية هذا بقى سخورست واي سعطة هذا هروقات وفي فاهينا كلا حريق نبرد الشاشة دكاغ نقطة هموغاني دوكسيجا أبلاين كبرشاد القرآن الكريم كان يعلم تشريعات دارو الهجرة